shirkadda Dahabshiil oo ka mid ahayd shirkadihii sida gaarka loogu casuumay munaasabadda xuska saxaafadda Somaliland ayaa waxay suxufiyiinta Somaliland ku bogaadisay xuska maalintooda iyagoo sidoo kalena u soo jeediyay talooyin iyo tilmaamo kor loogu qaadayo aqoonta suxufiyiinta. Saacad Muuse Cabdi, maamulaha suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda Dahabshiil oo kulankaasi khudbad dheer ka jeediyay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa. Dahabshiil group ahaan runtii aad baan ugu faraxsanahay, sharafna way noo tahay in aanu partner la nahay Soldier. Runtii min maalintii la aasaasay Soldier ilaa hadda runtii garab ayaanu ahayn. Sidoo kale Dahabshiil group ahaan warbaahinta dalka Somaliland waxaan oran karnaa inaan nahay media partnerka ugu weyn ee Somaliland ka jira shirkadaha ganacsiga la eegayo. waxaan halkan maanta doonayaa inaan uga faa'iideysto munaasabadan kulay ay mas'uuliyiintii Soldier iyo ay joogaan warbaahinta badankoodu laba saddex qodob oo u arko in runtii ay tahay baahiyo kale eriyooyin badan oo laga hadlay baa jira. waxaan ku dari lahaa sin ognahay maanta warbaahintu maaha inaynu siyaasad runtii laga hadlo. haddaad maanta aragto warbaahinteena waaweyn hal war ayaad ugu arkaysaa dhammaan TV-yadu ay ku wada jirto channel-kooga ama hal war baad arkaysaa iyadoo la wada baahinayo. runtii waxaan qabaa inay tahay eriyooyin badan oo la kofargareyn karo ama runtii aad looga tagay inay jiraan. waxaan oran lahaa maadaama arday la soo saarayo warbaahineed in lagu daro in ardayda sectors muxuu ahaayay loo qaybiyo. tusaale ahaan waxa jira maanta ma jiro wariyaan oran karno wariyo tiknoolajiyada ku si takhasusay oo gaar ah. runtii waa muhiim in sectors caafimaadka oo kale maanta waxa laga yaabaa inuu Cabdirashiid caafimaadka si dibliya aanu wareys uga qaadi karayn ama aanu geli karayn, laakiin markaan haysano wariye caafimaadka ku si takhasusay isaga laftirkiisu wax weyn bedel ka taraysa. sidoo kale dhaqaalaha wax badan bay ka taraysa. marka waxaan soo jeedin lahaa in warbaahinta laftirkeeda ay jaamacadaha iyo dib u gelinayno laga bixinayo sidoo sheegayay Zakariye in iyada laftirkeeda takhasusaad gaar la siiyo oo ay muxuu ahaayay sectors kala duwan la soo baxno. waxaan sidoo kale boorinayaa oo soo jeedinayaa runtii platformska social media-ha runtii aad bay u kobcayaan muddooyinkii dambe. waxaanad moodaa in warbaahinteenu la jaanqaadkii teknoolajiyada iyo muxuu ahaayay digitalka loo socdo ay runtii aan sidii la filay aanay u kobcayn. waxaan soo jeedin lahaa in warbaahinteenu aad u xoojiso Twitter-ka isticmaalkiisa. maanta way yar yihiin institutionska waaweyn ee ka jira dalkeena Twitter muxuu ahaayay ama verified-ka ah ama aad u isticmaala. waana adduunyada marka la hadlayo meesha waxa lagu kala qaataa xogta lagu kala qaataa ee lagu wada socdo waa Twitter. marka iyada laftirkeeda waan ku xoojinayaa isticmaalka. runtii munaasabadan aan ka faa'iideysanayaa waxaan u jeedinayaa inuu ducayno dhammaan wariyaashii cawke Allah u naxariisto Maxamuud Cabdi Shide oo isna maanta wuxuu ahaayay ay ku baagneed geeridiisii isagana waxaan la aynu ducayno. sidoo kale dhammaan wariyaasheenii qiimaha badnaa ee dalka iyo dadka inta soo qaybiyay laftigooda aynu ducayno.